السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما ولا له يوجد يوتيوب كيجا سود هذا مروى البقع مفروم وجه فروم قلب فروم ولا شيء عشان لذن قد وناكس مرتوى عن ولا شيء منى علي يا ما شاء الله منى شنو كان ما شاء الله ويكسب بدت عشان لنا عاوز محي وداع وحكى لما هن وحنك هلا وحكى لما هن وحير إن كهلا ربا إن شاء الله أنكو أركي برها بربشة إن شاء الله أو ولي لبدا ما نلسلك عي ويلك ولكن فنانك قمر سوداني قمر سوداني إنه كبحي دين إسلامك لكن أسأل موكسو هذلي وأنا سوق لنايا وأنا إلى داون تونتين إن شاء الله لكن قفك بمسلم asaga haduu intuu soo fariisto uu idin dhihin diinta islaamka waan ka baxay maxaad u aragtaa yani qada warta qofka haduunan dhihinin aniga gaala ahay oo diinta islaamka waan ka baxay dad badan oo soo istaagay oo Soomaaliyeed oo diinta ka baxay oo diinta waan ka baxay la soo istaagay way buuxaan laakiin qofka muslimka ah haduu asaga ku dhihin calaamad yar oo asaga sameeyay si qaldan u sameystay أما وحير وأسرع قلدان هذا كو أركتين إن الدين تو كبحي لوجلي لوجو في عناء. ولكن في عين قف مسلمنا وشهادنا إن قف كلا أفكس وكلا معنا قالتا إن قف قاس مقصي سعود صاسو قالوا وهذا حتى دنبيا قاسو قلا سمو. Yes, because هأخر كعنا ما هدون خرط سيد كحول social media وحول نقد لا بدأ مالين هذا هو شيء. Special Somali كل أحوالته. محيل قف قلدان. qof wanaagsan oo la hadalka loo gadinay soo wax u dhaw si kala loo sheegayo qof waxa jirta magaciisa inuu iska soo shacbaxo wuxuu rabo iska hadlaayo oo ka ahan gudihiisa ku jirin laakiin waxa la rabaa wax kasta aad ka hadlaysiin waa inuu wax macna leh inuu noqdo qofka diintiisa oo diin ka bax wax fiican ma aha maanta qofka bini aadanka waxa loo baahay limit inuu lahaado qofka walaalkaaga dambi ha ka gelin دنبيكيس هقادن غلط هدوك كجرو غلط كإنك كسحد اسكو داي إنا واحد أشيكت اسكو داي لكن هاي اسكو داين إنا دنبيكي إنو قصي إهراده وقصي هورو قصي سعودو أو هركعد ولا قفي عيه مركا وحان لاي هاي ويلك سولال كينا وصو هادلاي يوتيوب كو سؤال مقعد أنك داوان شالي أصلا ليه هاي ويل كان قالوا حضر وحن داودي أسوق قصو هذا وليه إن لله وين راجعون قف مسلم مسلم ما كل شيء مسلم ما كباري أو والدين الإسلام كان هيستا كله هدات كهر ويسدم بيجي على أسكال قلت إله وحوله أمجد كحشود هذه هداب إله كعب سنين وما عرفت وإله كفرته وما عرفت ذاتك كلنا ما كسكسي صحو في عمل موت marka waxaan leeyahay walaalaha ama youtuberka ah ama social media ku jiro ama magaciisa wiilkan boonbooninay oo u qaatay inuu diinta ka baxay wiilkan waad ku qaldoonteen waa wiil walaalkiina ah waa wiil fanaan ah waa wiil magac Allah magaciisa ha ku ciyaarina talabaad waa wiil muslim ah oo diin muslim ku dhashay oo ku barbaaray oo ilaa agtina uu haysto ku ashaadanay markan calaamad yar horta sidan kale horta Soomaali aqoon bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dhamaan umada Soomaaliyeed oo salaam iyo meel kasta dafa caalamka joogan waxaan rabaa su'aalo badan oo qalbigooda ku hayaan ma jawaabo maalmahan waxa dhex socda baraha bulshada ama umada dhexdeeda farsiimo ama ereyga ay kooxo sharuudayaal ay hawada u gelinayaan oo ah inaan diinta ka baxay ama shaydan ka cabto ilaahay ka magan galno waxaan rabaa inaan caddeeyo inaan ahay qof islaam ah oo ilaahay iyo nabigiisa maxamed bajal allahumma salli wa sallim alayhi ashhadu an laa ilaaha illa huwa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu waxaan rabaa sidoo kale inaan ka jawaabo heesta iyo sawirka sawirku kaliya wuxuu iga ahaa xirimaad ama style aan ku arkay
sawirada social media lagu isticmaalo deedna sidaa darteed aan ana iska samaystay oon sidii unana u xiirtay videoga ama heesta badanaa baraha bulshada lasoo dhigayo waxay ahayd heesaan anigu codkeeda duubay, laakiin anigu codkaan aan duubay kuma jirin codkani. aqoonna ereygan uma lahayn. marka waxaan leeyahay insha allah bismillaahi kariim, diinteenu maaha mid dayaldayala, maaha mid lagu ciyaaro, maaha mid qof islaama lagu dacaayadeeyo, ma baraha bulshada iyo youtubeyada adduun iyo lacag yaroo kasoo dhacaysa qofdhan diintiisa lagaga saaro. mana aha qof aada la dagaalamayso ama aada majara habaabinayso xataa dagaal ugu qaado. wuu dhaafay heerkiisii, way dhaaftay, yani way sukaysay intii shaksiyadayga lagu meereysanayay waxyaabaha kale. waxaan leeyahay in diinta lagu ciyaaray. ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muxamadan cabduhu wa rasuuluhu. intaan waxba garanayno labis iyo desaynka hadda socda iyo dadweynaha la socona iska dhahayna way jiraan. special dadka Soomaali ku nool way u badan yihiin, dad wax barta way ku jiraan, laakiin ma ogo dhaqamaha banaanka loogu dhaqmo, ma garanayaan. wax badan anaga nala xun tahay ayaga xaggooda ay ka fiican tahay jirta Soomaali iyo Africa meel walba ay ku nool yihiin Soomaalida, because waxaan aragnay madaxay soo xirnayaan sida gaalada. ninkii gaalka ah oo fanaanka ah oo heesay ama social media ku jiray arkayaan oo madax u xirtay oo iska soo xirnayaan. sarwaalka halkaas la geysanaya, sarwaalka kasoo dabagaabsanaya, halkaas ay geysanaya. wixii qof kale oo ajnabi sameeyay inaad sameeyso maxaa ku geliyay? waa qalad. kow, wiilkan hadda wuxuu dhahay aniga aqoon dari ayaa ii geysay inaan ku samaysto calaamada 3 geeslaha ah. waa dhageystay, ani si fiican u dhageystay. wuxuu ku hadlay asoo ashahadanayo uu laa ilaaha illa allah muxammadan rasuulullah. wax ka weyn maanta ma jirto. wax kasoo daba mari kara oo hadal ee laga daba keeni kara horta maba jirto totalba, because waa waxa anaga dhan ku wada kulannay oo diinta islaamka aan ku haysano. maxay tahay ashahaadada haddii asaga wiilka uu ashahadanayo in lasii jijido oo lasii wadwado oo lasii falanqeeyo oo lasii kala wadwado maba ahba total. horta wiilka meesha uga hara. kow, asagana wuu cadaystay inuu aqoon dari u geystay. wuxuu dhahay caalamka ayaa ka arag waxaan youtuberada meelahaas ka daawaday oo macnaha aan ka fiirsaday desaynka oo dadweynaha la socday. uu dhahay daas waa waxaan u samaystay, waxay tahay ma garanay. laakiin hadda maxay ku imaaday inay gaala tahay lagugu dhaho. walaalkay maanta way kugu dhacday, mar kalena iyo kugu dhicin, because waxaa dadka kala sameynaya haddaad ku dayatid wata hadda diintaada lagugu lagaadeyno lagugu leeyahay ma tihid. marka adiga la maahan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, wiil iyo gabarba, waxa dhaqamada dadka kale ee ajnabiga ay ku dhaqmaan ha ku dhaqmina. iska ilaaliya waxa dhibaatada idinkaga imaanaysa diinta xaggeeda. horta taaska calaamad kaliya waa ismugtaa codka oo hoos laga qaado. eliminaatiga codkiisa meesha ku jira. inta waxa ka maqlay Mari Axmeday u qaaday. horta dadka oo eliminaatiga way jiraan, dad jira waaye. wadankan dad qurbaha ku nool si fiican u yaqaano eliminaati way jirtaa. xitaa maxay ahayd qofka views badan iyo dadkaas camal ay soo xiriiraan waxa lagu leeyahay intaas aan geenaynaa sanadkan aan ku sameeynaa. maxay ahayd lacagtaas ku siinayna nagu soo biir. dad badan oo fanaaniin badan oo Amerikaan ah ku jiro, dad badan oo hadda soo caan ku jiro, dad kale oo Soomaali xitaa oo caan ah hadda la sheegay ku jiraan ay qaateen si u soo caan baxaan ama meel heer sare la geeyo. laakiin waxa u degan dadkaas waxa u degan shuruudahooda inaad qaadatid waaye. waxay ku leeyihiin haddaa ka baxayd marka waxa saxiixaysid, marka ka bixaysid oo kale cunugaaga laga qaada, haddaa ilmaha leedahay ilmahaaga kaa dilayna ay ku dhahayaan waxyaabo ku muhiimsan ee kaa qaadanaya hadhow xitaa kama bixi kartidbo.
marka dadkaas way jiraan dad jiro waaye maxay qof muslim oo shahaadanayo haddana inaad dhahdo maan maxay asa hadduu qirinayo qofku dhaha waa ku jira waa mogtahay laakiin wiilkaas wuxuu sheegtay inuu aqoon dari u geysay oo design-ka hadda socdo oo dhalinyarada ay isticmaalayaan oo adduun weynaha laga isticmaalo intuu raadinayay ayaa dhibaatadan horta ku imaada wiilkan suu sheegtay hadda qofku waxaa la fiiriyaa qalbigiisu iyo quluubtiisu waxay ku jirto laakiin layskama soo qabsado magaciisa meel qaldan qof muslim ana meel cilla inaad gaal ugu sheegto dembiga ku tahay taas sideeda kalaba waxaan leenahay walaalahay dhammaantiin waa run say walaashay sheegtay alimaatu inay jirto waa la og yahay ee adduun weynaha haysato dad fanaaniina ku jiro dad magac leh ku jiro dad muslimiin oo wili hata fanaaniin ha ku jiro oo la garanayo magacyo waaweyn leh caan ah oo YouTube ku jirto YouTube ay ku jirtaa caan waaye intaas flowers ay qabtaa marka waxay ku dhaheen wala soo xiriireen iyada xitaa ka hadlayso ereeda waa kan ay la soo hadleen masjidooda wix dhan gabartaas ilaa hadda meel lagu sheego email ka baxda iyo YouTube maanta ugu dambeys ma jirto meel ay ku jirto xitaa lama kasaayo dadka Soomaaliya ma gabar carab waa muslim ah haye meeshii soo gashay waxay tiri waa kana dadka ila soo xiriirisaan ay dhahoyn saas xitaa laga yaabo maxaa noogu hadashay masajideen maxaa u gudbisay in la dhaa oo maxay lagu haysto meel ay ku jirto ilaa hadda gabartaas dib oo dambe xitaa lama arkin dadka dad saas u xun waayo qof oo iska galmaan meeshaan dadkan shuruudo u taala shuruudahooda ah maxayda maxay ku jiraan dadku shaydaan marka waxaan leeyahay horta intay oo muslim ah horta ilaahay ha usoo الله هديه صح الله سو هديه إلهي دبا أوجو سعدي لكن وحن لنا هاي dadka walaalahayna ah oo Soomaaliyeed oo muslimiinta ah qof muslim ah hajaa'ifeen qof muslim ah diintiisna adigoo hubin inaan la soo istaagtin social media aad dhahdeen qof hebel gaal waay because adaa gaal waay dhahda taas bari waa lagu soo fariisinaa dambiga adi aad qaadatay bari adu ku yaala marka waxaa fiican qof muslim ah sideeda kaleba waxa mamnuuc ay ka tahay in la dhaho gaal waa erayada aakhira la isku qabsan doono adduunkan si loo joogi doono allahu aclam saa u joogi doonto isaa ugu noolaan doonto waxaa tahay qof naf la siiyey oo loo dhibta ammaano ku ah ummadda inaad ka nabadgeshiin allah idin isku daya inaad ummadda ammaan Soomaali waa fiirsaday abaayo horta social media way ku dhex waalatay kow Soomaali waxaan ku arkay halka maade nin ajnabi ama nin carab ah nin muslimiinta kale oo YouTuber badan ku jiro muslimiin ah laakiin Soomaali waxay noqotay inay iscaayaan inay is-aflagaadayaan barbagaanta ay sameeyaan qof ay ku dhaganaadaan maalinba qof ay saaran yihiin laakiin waxaa loo baahan yahay waxaa ka hadlaysid inaad xisaabtid horto waxaan qalad makaaga imaanaa waxaan dambi makaaga imaanaa waxaan dhibaato makaaga imaanaysaa qofku walaalka ma dhaawacaysaa inaad dhexdeerto ay ku fiican tahay laakiin dambi adigoo arkaysa hadaa lagu hada ku raasatid waa maalinta qiyaama lagu soo istaajinaya afka ku hadashay ayaa su-aashaas kugu imaan doonta maxaad ku jawaabi doontiin qalad waay marka waxaan idin leeyahay wiilkaas ha laga haro qof muslim ah oo islaan ah oo shahaadanayo oo markii horeba qalad laga galay oo haddana asaga naftiisa uu leeyahay shahaadada la soo istaagay walaalayaalow hadalkaas haddii aad u qaadateen anisaad madaxayga haddaad aragteen calaamada shaqo kuma lehi midin dhah wiilkaan faraha laga qaado nabadgeliyana hala siiyo dib damba social media wiilkaas isoo loo hayeen yaa la arko waa wiil walaalkiin waay waa wiil muslim ah wiil Soomaaliyeed waay sharaftiis iyo sumcadiis ha ku ciyaarina maxaa ka dhigi leedahay waxa waaye hadduu wiilkan miskiinka horta uu ka hadlay waxa uu sameeyay wuxuu aqoon daraa ii geysay wuu ashaatay muslimna ahaa uu dhahay marka waxa waaye horta dad bini aadan asaga fiiri
allah uu ka cabsadaa qalbiga qulubtiisa horta inuu isaga may muslim uu xitaa isku yahay laakiin dadka inuu qanciyo daraadeed waa shaaganaya ninka uu ashaatay in Soomaalida ku dhigan oo meel kasta laga haysto YouTuber hadhihin meel kasta hadhihin oo lagu dhiganaa wiilkan kulli wiil ashaato waaye maaragtay wax la wadwado iyo waxaas inta ka deysaan qof ashaadan oo dhaw muslim ahay iska keedaayo ina hadana ku sii socotiin oo dhaadin ma ahan maaragtay kala tahay isaanata waxa dhig lahaa maxay heeda walaalkeeni hala yani nagaraal qadamaanteeni iyo maaragtay inta yar oo magacaada aan soo qaadanay oo magacaada aan sii wadno nafteena ban dambiga inaan gees ka qaadana diyaar uma nihin laakiin waxaan nahay dad walaalnimano iyo dhiig islaamnimada soo kicisaan nahay xumaan hanoo arkin tan labaad qof haddaan qalad aan ka galay ama dambi aan ku sheegoy ma tihid waxaan ahay qof muslimnimada magaciisa iyo islaamnimada iyo insaannimada aan fiirinayso oo ka hadlaysaan ahay waxaan oga hadlayn waxay tahay wax kale ma ahan qofka muslimka walaalka ah nabadgeli marka wiilkan waa lagu xadgudbay sumcadiisa ku ciyaarteen meel kasta wareejiseen islaamnimadu ka baxaa dhahdeen asoo qashuucsan horta inaad qof bini aadan daraasiis madaxada camaamo usoo saartay maba iham ko camaamada usoo saartay wuu u ashaatay muxuu u ashaadanaya oo camaamada ugu soo duubtay maxay tahay si u qalci daraadeed it was so funny dadka maaragtay qof oo lagu dhagaa waxa leeyahay qofkan saan waay qofka YouTube wuxuu soo fadhiisanaa live oo soo fadhiisanaa waqti camaamadu ma soo duubana calaamadaas maxay deynay ina islaan banga ina islaan ahay daraadeed camaamada u saaran hadda saarteen toos u saaro walaalkay tahay waxaan ku leeyahay qof bini aadam xadgudbana diyaar uma nihin marka waxaan leeyahay adigana maanta way kugu dhacdee kuwaanse qaado qaladka maanta gashay oo adiga calaamadaas adiga aad samaysay dhibkee kuu keentay iyo diintaada inay soo fargashatay ogow walaalkay maanta waa samaysay laakiin hadda calaamooyin badan oo qaldan oo ilminaati isticmaalaan jirto ilminaati le maahan wallaahi may ilminaatiga ugooni u ahbo ay ka isticmaalo ay fanaaniinta dadka ay kugu jiraan iyo dadkaasoo dhan waa loo soo dhiibtaa way soo geliyaan dad badan waxay u maleeyaan inay fashion iska taho sawir ku galayaan videos ka maya Soomaalida wiilasha asaga le maahan wiilasha Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed dhaqamada dadoo oo ajnabiga ah ha ku daysan sawir sida caadi u gal maxaa tinta si fiican u jiro labiso sida adiga aad ka heshiis u sameeyay madaxaada labiso saarta u labiso laakiin ha ka dhigin sida dadka ina ku daysatid adduunyada wax ka socdaan raaca hadda dhahdid waa midaan wiilkan ku dhumay oo hadda dambigi loo kor laga saaray oo wuxuu asaga ahaan kor laga saaray oo sharaftiisa lagu ciyaaray marka waxaan leeyahay walaalahay dhamaantiinba iska dhaaf waxa ilaahay ha laga cabsado allahay idin abuurta ka cabsada xumaatada yaa la sii badinin yaa aflagaadada yay badanin qofka muslimka adigoo waxba ka ogeyn in ku xadgudbina xadgudubka ma fiicno marka waxaan leeyahay dhamaantiin meel walba aku nooshin adduunka dacaladiisa waa walaashin cashiladan waxaan leeyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن عسلنا هلوبته